filimkana wuxuu ka bilowdanayaa gabadh yar oo la dhaho Bagsiri waxayna jacaylkeedii ugu horreysay soo bandhigatay iyadoo 5 jir ah taasoo ay u sheegtay wiil ay ilmaadeer yihiin wayna ku guulaystay goobta ay joogeenna waxay ahayd goob qubuur ah markii labaad iyadoo fasalka saddexaad ah ee warqad u qortay waan kaa helay sidoo kale isaguna wuxuu soo qoray amba waan kaa helay maalintaas markuu soo jawaabay waalidiintiisa iskuulka ka saareen iyaduna waxay isweydiinaysay muxuu kugu soo jawaabayay hadduu baxayo kadib waqtigu wuxuu socdaba way weynaadeen Bagsiri mitaanteeda heereen waxay bilowday in timaheeda waxyaabo qaab daran ay ka buuxiso kadib maalintii dambe waxay go'aansatay in wiilka dalabka keena ay xeer u soo bandhigto laakiin waxa uu socday heerin halkaas gacanta qabsato heerin wiilkii masaakiintii reer Bagsirina waxay go'aansatay reer waxna dhacda in ka fogaato laakiin taas uma shaqaynayso maalintii xigtayba waxay xeebta ku aragtay wiilka ugu shaqeeyay iskuulka kaasoo lagu magacaabo Kim Hanyang kala badh habla dhigtay iskuulkana say karaash ku yihiin kadib waxa aragnaa wiil u dhaho Niho wana saaxiibka Bagsirin iyo asxaabteeda waana wiil furan oo iska qosol badan waana dumar shaneeya yacni cid kale oo lama socdo Bagsirin iyo asxaabteeda dhinac kale uma dhaafo Bagsirin ayaa dhahda san maqlib qofkii ku soo ag fadhiista in beeraha dhigka keenayo waban ka carara yacni warbadni wuxuu ka qabo ay saagu leedahay isaguna wuxuu ku dhahaa musalji ma waxa uu tiraahday waxaanu yeedha musalji isaguna ku dhahaya macmaan ma rabtaa iyadana waxay ku tiraahdaa Niho waan ku bariyaa ma iga aamusi kartaa Sirina waxay ku tiraahdaa maxaa la fadhidaa marka shaqaysa homuuga isaguna wuxuu la soo wada buuga waxaanu ku idhahdaa waxaas mar hore ka shaqeeyay laakiin waxaan arkaa inaanu dhamin kadib waxaan aragnaa Kim Hanyang oo ciyaaraya basketball kaasay daawanayeen habli karaasha ku hayo dhan kadib Bagsirina asxaabtooda waxay yimaadaan dukaanka bariga loo aado waxna dhiibisa lacag iyadana ku tiraahdaa soo qoob biyahaas kadib waxay ku qortaa magaceeda oo ay soo gaabsatay asaar kadibna waxay ku tiraahdaa gabadha dukaanka biyaha arkayso waxaa siinaysaa wiilka jooga dheer leh kadib gabadhii dukaanka ayaa ku tiraahdaa Kim Hanyang Soomaha markaas ahaa ku tiraahdaa waxayna weydiisaa sidii ku ogaatay kadib gabadhii dukaanka ayaa ku tiraahdaa kaliya maaha waxa siinay biyaha waxaana ka baqaya inay calooshu qaraxdo kadib waxaan aragnaa in biyo fara badan lagu talagalay isaga oo ay dhigaan hawlo kale oo karaash ku ah kadib Bagsiri way iska soo qaadataa biyaheeda waxaan aragtaa inan kale oo sidatay biyaha taasoo idana la rabtay Kim Hanyang laakiin markaa aragtay sida Sirin oo kale way iskaga soo laabatay kadib Bagsiri waxay timaadaa xeebtii ku arkaysay Kim Hanyang iyadoo filaysa inuu imaanayo waxaan iska niyeysataa soo u yimaado oo ku leh magacaaga aad ayuu qurux badan yahay intaas kadib waxay gashaa badda iyadoo iska dabaalanaysa waxaana yimaada wiil kale waxaanu arkaa Sirin oo ku dabaalanaysa badda kadib waxaa akhrinaya magaceeda isla markiiba wax badda ku dhaca shaarkii Sirin isaguna maaha wiil garanaya dabaasha waanu ku qarqoomaya kadib waxaa arkaysa Sirin waxaa noo soo dhaqaaqda dhinaciisa kadib way ka soo saartaa iyadoo aad u naxsan kadib waxay damcaysaa inay neef siiso laakiin taana siina ayuu soo kacaya farxad darteedna dharbaaxaya ka jirta kadib waxay ku tiraahdaa haddana dabaal aqoon maxaa badda ku soo gelinaya kadib waxaa arkaysaa shaarkeeda oo biyaha ku dhex dhacay maalinta xigtana waxaa aragnaa Niho asxaabtiisa ku leh war cusub ayaan iyadii hayaa laakiin taanuu sheeginba waxaa soo galay macalinkii iyo arday cusub oo lugta ka jaban waana wiilkii shalay ka badbaadisay badda Bagsirin kadib Sirin ayaa u timaada waxaana ku tiraahdaa habeen islaahay mar dambe ayaad kulmaysaan isaguna sidoo kale ayuu ugu jawaabaa kadib waxay ku tiraahdaa lugta shalay miyuu dhaawac kaa soo gaadhay laakiin uma jawaabo waxaana ku tiraahdaa maalintaas haddana aniga ahayn waa dhiman lahayd waana iskaga tagtaa kadib asxaabtiisa ayaa aragtaa Niho taagan waddada waxaana ku yidhaahdaan maxaa kugu dhacay kadib wuxuu tusaa wiilkii lugta jabnaa kadib Bagsirin ayaa ku tiraahdaa halka kaa caawin lahayd ayaad daawanaysaa kadib Sirin ayaa u timaada waxaana ka qaadaa dalaayadiisa kadib way baxaan kadib macalinkooga ayaa u yeedha isagoona asxaabta kale ku dhahaa saaxiibkiin cusub ayaa daawanaysaan isagoo culays dareemaya kadib wuxuu ku yidhaahdaa ka qaad boorsada waa inay ka qaadaan kadib Sirin ayuu macalin ku dhahaa tinta noocan ah ee soo hagaajiyey beritoole haddii kale anaa ku waday sayloonka kadib Sirin asxaabteeda ayaa u sheega in Kim Jong-un ay timaheedii soo hagaajistay waxayna ahayd sida Sirin oo kale oo ay timi adkeed wayna soo cararaysaa kadib oo timaadaa iyaduna la yaabaysaa qaabkii timaha u soo hagaajisay kadib waxay ku tiraahdaa saaxiibaha ka soo hagaajistay waana u sheegaysaa laakiin waa qaala ayay u raacaysaa isla markiiba goobta ayay aadan iyaduna gabadha koonfeer ku tiraahdaa meel idin hagaajiya timaha aad rabtaan kadib Sirin ayaa haa tiraahdaa iyaduna u sheegtaa in mar hore ay hagaajisay laakiin markii timaha ay meedheen ayay sidoodii ka daran ay ku soo laabteen kadib gabadha ayaa ku tiraahdaa waan kuu dadaalaya hadday timaha ku dhaltaa yihiinna way adkaan doontaa in la hagaajiyo kadib waxaa aragnaa Sirin oo lacag ururinaysa iyaduna waxaa lacagta hele xaafadda ay soo ururisay waana u gaari waayeysaa lacagta ay rabtay kadib iyadoo iska hormaraysa koonfeerka oo ay xiise weyn u qabto in mar uun loo hagaajiyo timaha ayaa waxaa aragtaa wiilka ay badbaadisay iyaduna ogaataa inay hooyadii tahay gabadhan kadib maalinta xigtay waxay bilowdaa inay ka hor gaado sayloonka wiilkan lagu magacaabo Homyusag si ay hooyadii uga hesho in timaha ay u hagaajiso kadib Homyusag ayaa ku dhaca xaggan maxaa ka qabanaysaa waxaan ku tiraahdaa waxaan maraa wadadan iyadoo ku tiraahdaa adiga xaggan maxaa ka qabanaysaa kadib wuxuu ku yidhaahdaa meheradan hooyadii ayaa iska leh iyadoo ku tiraahdaa waa inaan isbaro kadib waxay u sheegtaa in wiilkeeda noloshiisa badbaadisay iyadoo badda ka soo badbaadisay kadib wiilka ayaa dhahaa hooyo dabaalu ma laadin laakiin kaliya waan ku dhex dhacay intaas kadib waxay Sirin tiraahdaa laakiin isaga darteed nolosheeda khamaar ayaan geliyey kadib Homyusag hooyadii ayaa ku tiraahdaa Sirin
hadda inta wiilkayga caafimaadaya aad ilaaliso anna waxay igu ballanaa inaan timaha ku hagaajiyo wayna farxaysaa sababtoo ah waxay doonaysa way heshay kadib Sirin waxay daryeelaysaa Home-Yun-Suk iyaduna iskuulkiisa kana soo kaxaysaa kadib waxay galaan imtixaan Home-Yun-Sukna markii uu dhammeeyaa maalintii xigtana waxaa aragnaa inuu bogsaday Home-Yun-Suk Sirin aad bay u farxdaa Home-Yun-Suk hooyadiina waxay u sheegtaa inay si free ah timaha u hagaajin doonto iyaduna aad u sii farxdaa kadib Sirin ayaa ku tiraahdaa waan ku imaanaya maanta raba inaad ii hagaajiso waxaana rabtaa in loo hagaajiyo maanta dalxiiska loo baxay iskuulka kadib waxay yimaadeen iskuulka waxaana maalintii la soo dhejiyey imtixaankii 100 qof ee ugu sareeyey waxaana ka yaabaysaa Home-Yun-Suk oo kaalinta koowaad galay waana la yaabtaa arrintaas Sirin laakiin wax kaloo aan ogeyn ay u sheegeen asxaabteedu taasoo ah inaanu ku jirin Kim Hon-yak waana niyad jabaysaa waana iska baxdaa maalintii xigtay iskuulka waxaa ka jirtay ciyaar inta ciyaartu u socdeenna Sirin iyo asxaabteeda waxaa ka soo horbaxa Kim Hon-yak waanu salaamaa Sirin waana u qaadan waayeysaa kadib ciyaarta waxaa la isku raacay laba qof qofkii garanka cad xidhanna wuxuu difaacay gashaayada buluuga xidhan waxaana isku jiray Home-Yun-Suk iyo Sirin waxaa dhan kale isku jireen Kim Yak iyo Kim Jong-un kadib ciyaartu way bilaabaysaa Home-Yun-Sukna wuxuu soo bandhigayaa ciyaar aad u xiiso badan kaasoo si weyn u badbaadinaya Sirinna waana la yaabaysaa qaab ciyaareedkiisa kadib ugu dambeyn waxaa isku soo hadha Home-Yun-Suk iyo Sirin oo isku tiim ahaa iyo Kim Hon-yak iyo Kim Jong-un oo isku tiim ahaa iyaguna intaas kadibna Home-Yun-Suk ayaa jaanis ku hela Kim Jong-un oo bannaan isla markii waxaa soo carara Kim Yak isla markii uu ku tuuro Home-Yun-Suk Kim Jong-un kubaddii waxaana aragnaa Sirin oo kubaddii isku dhigaysa Sirinna waxay ku dhacdaa dhulka Home-Yun-Sukna uu yaaba waxay samaysay Sirin kadib uu iska baxa habeennimadii ayaan aragnaa iyadoo dhaawacyo ka soo gaadhay isha waxaana tiraahdaa Home-Yun-Suk maxaasan u samaysay intaa kadibna waxaa cod fariinaha u soo dira Kim Hon-yak isaguna ku idhahdaa maanta badbaadintaad noo samaysay waan kaaga mahadcelinayaa iyaduna way u qaadanaysaa inuu la soo hadlay Kim Yak aad bayna u farxaysaa kadib waxaa cod fariinaha u soo dira Home-Yun-Suk isaguna ku dhahaa wixii aad samaysay maanta kama xumi maalintii xigtana waxay timaadaa sayloonka si timaha loogu hagaajiyo waana maalinta ay sugaysay sababtoo ah beri waxay u baxayaan ardaydu dalxiis hooyada Home-Yun-Sukna waxay ku tiraahdaa shaqo ayaan hayaa xagga ay fadhiso hay ayay ku tiraahdaa isla markii waxaa imaadaa Home-Yun-Suk inuu hooyadii ku tiraahdaa waa wax fiican haddaad timi Sirin timaha u sii dhaq intaa hawsha dhammaynayo isaguna wuu la yaabaya isaguna xishoonaya ayuu dhaqaaqaa intaas kadibna Sirin wuxuu ku dhahaa timaha sidan ayaan kaga helay run ahaantii waxaanu biloobaa inuu dhaqo kadib hooyada hawsha hayse aniga kale way u dhammaysay waxaana soo fadhiisataa Sirin kadib hooyada ayaa ku tiraahdaa waxay sida u dhaqday timaha caadi umaad meedhin timaha maxaa caadi ugu meedhi weyday isaguna wuu isboojaya waxaanu hooyadii ku dhahaa hooy dibadda ayaa ka soo laabanaya waanu ka baxaya sayloonka kadib Sirin ayaa hooyada ku tiraahdaa namar caadi ayaan kugu soo meedhaya maalintii xigtay waxaa la soo gaadhay xilliga ay baxeen dalxiiska waxaana la sugayaa Sirin oo keliyaata kadib Sirin ayaa soo baxda in timaheeda loo hagaajiyey ardadiina way la wada yaabiyey quruxda timaheeda waana la wada dhacayaan kadib waxaa biloomaya dalxiiska wana iska damaashaadeen habeennimadii markii la gaadhay ardayda ayaa khudbadii dhiirigelin isku soo jeedinayay xagga dhaga kale Sirin iyo asxaabteedu ay diyaarinayeen meel aad u qurux badan taasay ka damacsan yihiin inay Sirin jacaylka ugu sheegato Kim Yak ardaydii kalena waxay dhegaysanayeen Sirin aabeed oo hees qaadaya kadib Niho ayaa bilooba inuu soo kaxeeyo Kim Yak isaguna ku dhaha raac calaamadahan dhinacna hawa leexan kadib Kim Yak wuxuu tagaa Sirin oo taagan meel aad u qurux badan asxaabteedu waxay ka soo daawanayaan dhinac kale kadib Sirin ayaa ku tiraahdaa ka waran goobtan Kim Yak wuxuu ugu jawaabaa way qurux badan tahay laakiin timahaaga ayaa kasii qurux badan Home-Yun-Suk inuu daawanayay laakiin isagu kuma faraxsano arrintan dhacaysa waanu iska baxayaa Sirinna way arkaysaa inuu baxay Home-Yun-Suk waxaanu iska dhex tegaya ardaydii isagoo murugsan kadib Kim Yak ayaa ku dhahaa wax maad rabtay inaad ii sheegto ha ayay ku tiraahdaa waxaana ku tiraahdaa run ahaantii aad ayaan kaaga helay aniga timahaygana darta ayaan u soo hagaajiyey kadib Sirin iyo asxaabteedu ayaa yimaada goobta ardaydu ka caweynaysay kadib Sirin asxaabteedu waxay ku dhahaan wuxuu kuu soo sheegay laakiin Sirin uma sheegto oo waxay ku tiraahdaa mar kale ayaan idiin sheegayaa kadib waxa la gaadhay subaxnimadii la baxayey Home-Yun-Sukna wuxuu arkaa Kim Yak oo macasalaaminaya Sirin kadib wuxuu soo furo baska lamana hadla Sirin habeennimadii markii la gaadho ayuu Sirin ugu yimaadaa goobta wax ku wada akhristaan oo aabbaha Sirin leeyahay kadib Sirin ayaa Home-Yun-Suk ku tiraahdaa waxaad rabtaa inaad wax ii sheegto maya ayaanu ku dhacaa Sirin waxay ku tiraahdaa sida Kim Yak wax ugu sheegay oo kale ma rabti inaad wax igu sheegto kadib Home-Yun-Suk iyo inaguba waxaynu fahanaa in Kim Yak Sirin ay isku fahmi waayeen arrinkaa markaas kadibna Home-Yun-Suk wuu nafisaa culayskii badnaana wuu ka kala degaa maalintii xigta markii iskuulka laga soo dararo Home-Yun-Suk ayaa arkaan asxaabtiisa isagoo la taagan Kim Jong-un waxaasna wuxuu samaynayaa si ay u maseerto Sirinna waa maseeraysaa habeennimadiina wuxuu u keenaa hadiyada ay ka dalbatay weliba sii kelisaa ayuu u keenaa kadib markuu bixi rabay ay Sirin ku tiraahdaa timaadagtii maxaa ka dul qabanaysa maanta Home-Yun-Sukna wacad ayuu ugu jawaabaa si ay u sii maseerto kadibna maalintii xigtay markay ka soo baxaan iskuulka waxay Sirin asxaabteeda ku tiraahdaa waa inaan hore u tago maanta hooy ayaa alaab iga sugaysa kadib way baxaysaa Home-Yun-Sukna wuxuu ku dhahaa
anba sidoo kale hawl ayaa ii taala waa inaan dhaqso u baxo kadib markuu baxo way shakiyaan asxaabtu wayna dabagalaan kadib waxay arkaan Sirin iyo Homyusag oo isla socdaan wayna u qaadan waayaan inay xiriir samaysanayaan kadib Sirin iyo Homyusag waxay socdaanba soo gaadhaa guriga Sirin kadib Homyusag ayaa ku dhahaa socodkana waa sii wadan karnaa Sirina waxay ku tiraahdaa maxaa diidaya haa kadib waxay tagaan xeebtii Sirina waxay ku tiraahdaa hore ayaan xagga naftaada ugu badbaadiyey iminka islaali waxayna ku tiraahdaa laakiin maxaa sababay inaad biyaha ku dhacdo isaguna wuxuu soo saaraa magaceedii bahasha ku qornayd kadib wuxuu ku dhahaa magacan waxaan u qaatay si aan u ilaabin magaca qofkii nolosheeda badbaadiyey kadib wuxuu soo qabtaa gacmaheeda waxaan u sheegaa inuu aad uga helay yadaa Sirina ku farxday arrinkaas kadib habeenimid markii la gaadhay waxaan aragnaa inay soo gaadheen guriga Sirin kadib intaana kala tegin Homyusag muu noqon ma gudbay waxaanu soo dhawaaday Sirin kadib uu shumiyey habeenkaasna wuu gudbay kadib markay gashay Sirin guriga farxad saayida ay dareemisay sidoo kale Homyusagna isaguna uu dareemayey kadib maalintii xigtay Sirin waxay garaacday asxaabteeda iyadoona ku tiraahdaa xeebtii inoo diyaariya iyadoona rabtaa inay surprise uga dhigto Homyusag maalintii xigtana waa la soo gaadhay asxaabteedana waxay diyaareen xeebtii si qurux badan laakiin ma rabto inuu arko Homyusag asxaabteeda kadib haba ay siisay iyadoona doonaysaa inaanu arkin kadib Homyusag ayaa ku dhaha waxaa rabaa inaan kool darsado intuu koolka darsanayay Sirin asxaabteeda ha ku lahayd isqariya Homyusag markuu dhammaystana wuxuu u sheegay Sirin arrin naxdin leh hooyadii ee dhakhtar ku jirta Seoul ku yaala waa inaan baxo markaa kadib markuu baxay asxaabteedii iyaduna waxay gurayeen waxay u sameeyeen Homyusag iyadoona ku tiraahda Sirin asxaabteeda waad mahadsantiin kadib waxaan aragnaa Homyusag inuu tagay dhakhtarkii hooyadiina ay ku jirto koomo kadib waxaan ogaanaa ninka dhakhtarka ah inuu yahay aabbaha Homyusag waxaan ku dhahaa hooyadaa waxay odhan jirtay waa wiil dabeecad wanaagsan laakiin hadda waxaan arkaa wiil madax adag kadib asxaabta ayaa timaadaa sayloonka Homyusag waxayna arkaan inay xidhan tahay kadib fikrad ayaa ku soo dhacda Sirin taasoo ah inay ugu tagto dhakhtarka Homyusag waxayna soo qaadanaysaa lacagtii ay rabtay inay marka hore ku samaysato timaha kadib waxay soo raacdaa tareenka ugu dambeyn waxaa timaadaa dhakhtar ay ku jirtay Homyusag hooyadii waxayna aragtaa Homyusag oo la hadlaya hooyadii isaguna ku yidhaahdaa hooyo dhibaato dambe uma dul qaadan karno inaan xaggan isaga tagno oo aan aadno Maraykanka kadib Sirin way xanaaqdaa iyadoona iska dhaadhicinaysaa kaa fogaanaya kumana rabo habeennimadii markay gaadhana intaana bixin waxay kool soo dirtaa Homyusag iyadoona ku tiraahdaa xiriirkana xagga inagu ekee xaggaas ku joogsanayaa masaakiin kale walbatiisu haystina way ku sii adkaysay xaaladii maalintii xigtayna waxay ahayd qalinjibinteedii waxaana la siinayay shahaadooyinkii habeennimadii marka la gaadhana waxay tagtaa maktabadda ay wax ku wada akhrisan jireen ee aabbaheed lahaa kadib waxaa aragtaa buuggu sawiradeeda ku dhajiyey Homyusag kaasoo ugu sheeganayay jacaylkeeda masaakiintii reer Sirina yadna oohin ayaa xaggan qabsataa maalintii xigtana waxaa soo waca asxaabteeda iyadoona ay ugu tagto makhaayad laga cuneeyo kadib markay sidaa asxaabteeda ugu timaado waxaa u yimaada ninka makhaayadda isagoona u sheega in kursi gooniya loo diyaariyey halkaasay ku sheeganayso jacaylkeeda waana la yaabtaa waxaana waxaa ka dambeeyey asxaabteeda ugu dambeyn asxaabtina way ka tegaysaa makhaayadii keligeeda ayaa ku soo hadhaysaa idan waxay tegaysaa kursigii loo diyaariyey kadib gabadhan ayaa ku tiraahdaa waxaad ka fikiraysaa jacayl kadib beeg Sirin waxaa ku tiraahdaa isma lihi jacayl baan qaranayaa laakiin haddaaban jacaylka qaranayo xaggan maaha meeshan ku qaranaya ee waa dhanka haya xeebta kadib way baxdaa waxaana aadaa dhinacaya xeebta ugu dambeyn waxaa soo wacaya Homyusag kadib markii maqasho codkiisa way soo jeesataa oo way ilmaysaa ugu dambeynna laabtiisa ayay soo gashaa waxaana ku tiraahdaa wixii aan sheegay oo dhan wax run ah kumay jirin isaguna wuxuu ku idhaahdaa waana ogahay sababtoo ah habeenkaad ila hadlaysay koolka maad kansal garay wixii hadal dambaad ku hadlayso dhanna wuu ku maqlayey waxaana maqlayay inaad aad igu xiistay kadib wuxuu siinayaa hadiyad waxaan u keenaa quraarad warqada ka buuxaan halkaas markasta uu ka fikirayada uu warqaddu duubiyey kuna dhex rideeyey quraaradda kadibna xarena inay u yimaadeen asxaabtiisii xaggaasoo ay ku faraxsan yihiin labadooda saaxiib jacaylka dhex maraya filimkina xaggaas ayuu ku soo dhammaanaya haddaan muuqaalka like saar haddaad channelka cusubtina subscribe saar soo noqo wanaagsan